بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دبادة جنال كان وركي ودنبي سبورتسكا محال لغي هي لابدي كولن ديشي نادي كوبدا عقد ليفربول لابد بقول مهمة اي غارتي waxaa lagu arkay xidig taye wata daa'ir ah Rio oo inaba caadi ahayn caawin iyo goolba sameeyay waa nin u soo baxay naadi kubada cagta Liverpool inaba caadi maan garab weer suuq kama rabta ayaa leeyahay sidoo kale Enrique oo lagu soo waramayo in naadi ka dhisan La Liga uu ku biiri doono waliba qaab ama ah the world champions Chelsea oo ku soo laabatay tababarka iyo shaqadeeda isku diyaarinta xil ciyaareedka soo socda xidig garabka weerarka ah ee Borussia Dortmund oo markii ugu horeysay lagu arkay tababarka naadi kubada cagta Chelsea sidoo kale maxaa ka cusub Hansi Flick Rashford oo daqiiqada gaarayo 122 daqiiqo ku helay gooshiisa ugu horeysay sidoo kale Barcelona iyo Real haday isqabtaan yaa goolal badan yaa la xaqbiya ayaa leeyahay waxa soo dhan iska ilow Liverpool Bayern Munich oo ka shaafisay dhanka lacagaha Luis Diaz imisa ayuu ka qaataa isbuucii waa arki doonaa wax walba oo ku saabsan isaaq oo rabo inuu sii xoojiyo naadi kubada cagta Liverpool iska ilow Mbappe Haaland Luka Modric waa xidiga kaliya ee dhaxgalay 14 sano ay ku guuleysanayeen Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo Ballon d'Or ninka kaliya dhaxgala waa warkaasi warar kale ku soo dhawaad xaaj official hadii aanu cusubtay please subscribe noo saar like dhaysiin share garay waa ka imaad celina daawashada muuqaalkan koonto waxaan wanaagsan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee suuqa iyo ciyaaraha wax walba oo saabsan tahay sportska ahlu sports hada tahay ku soo dhawaa kuna soo dhaway saaxiibkaaga jecel inuu xogta sportska maqlo xil walba iyo meel walba uu joogo naadi kubada cagta Liverpool ayaa isku tijaabisay laba kulan oo isdaba joog ahaa oo xalay toole ay dheeshay labadii kulanba midna 4-1 ay ku adkaatay midna 3-2 inaba caadi maahan meelna waxa hogaaminaya Rio meelna waxa hogaaminaya Mohamed Salah iyo Gakpo inaba caadi ma ahayn waxa leeyahay kulan wax qabadkiisa wate ayuu ahaa xidiga naadi kubada cagta Liverpool ee daayirka ah ayaa bandhig waali ah ka sameeyay daqiiqadii ugu horeeyay ciyaartaba marka ninkan kulamadii horena waa arkeen asoo gool dhalnaa waliba si xirfadeysan shalay tooleen wuxuu noqday xidig booskiisa ka soo baxo runtii wuu muujinayaa inuu garabkaas dheeli karo bandhigiisana high level yahay hal iyo labana ka gudbi karo marka waxaa haatan la filaa in garabkaas aysan Liverpool qof kale u soo gadanin bis raadiso booska noobaha ee isaaq ay raadinayso marka waa arki doonaa wixii ka soo baxo naadi kubada cagta Liverpool ayaana marna 4-1 ku adkaatay marna 3-2 bandhigaas ka hadal ma lahan sidoo kale waxaa la arkay Eketika oo noqday xidig mar kale sameeyay safashadiisa Liverpool wuxuuna sameeyay caawintiisa ugu horeysay ee naadi kubada cagta Liverpool marka ninkan bandhigiisa caadi ma ahayn caawin uu ku tuurtay marka sidoo kale Gakpo siin waa ka laba gool ku tuurtay inaba caadi meen xitaa gool on gool alshay on gool xataa iska dhaliyay naadi kubada cagta marka Liverpool kulankii oo koowaad 2 daqiiqo shabaqay gaareen sidoo kale naadi kubada cagta Liverpool hadana kulankii kale 5 daqiiqo 2 gool ay lahaayeen ajaib marka waa shirjibi Athletic Bilbao waa shirjibi laba saf oo xoog leh loo geystay sidoo kale waxaa la arkay naadi kubada cagta Liverpool oo wili xuseyso geeridii ku timid Diego Jota iyo walaalkiis Andre marka waxaa leeyahay taageerayaashii labada naadi ayaa garoonka soo dhaxdhigay Anfield oo waxay u talagaleen xidiga sidoo kale taageerayaashii ayaa fanaanadooda soo qaateen naadi kubada cagta Liverpool xataa si qaas ay u taabanaysaa geeridaas marka Jota wili waa laga dhamaalayo taxsiis ayaa socda waa arki doonaa sidoo kale intaana Liverpool ka bixin Alexander Isak ayaa wili ku raad joogo ku beerista naadi kubada cagta Liverpool asigoo rabo inuu xoojiyo safka naadiga hore ay u haysteen Salah Eketika Wis iyo Gakpo Diaz waa baxay Rio ku dar booskaas marka waxaa leeyahay Isakna waa weeraryahan kale oo ku soo beeri karo naadi kubada cagta Liverpool ha iloobin Curtis Jones iyo Harvey Elliott inaba caadi ma Liverpool sidoo kale Luis Diaz ayaa ka baxay baahidii ku heysay naadi kubada cagta Liverpool ayaa ogeyn inay fasaxday Luis Diaz oo ku biiray naadi kubada cagta Bayern Munich
wuxuu qaadan jiray isbuucii 140,000 ayaa leeyahay isbuucii. Liverpool ninkaas baahida ugu weyn oo uu tagay waa mushaaraadka leeyahay, asigoo waxqabadkaas leh, koobabka la guuleysanayo, kulamada qaar natiijo fiican sii jiray. waxaa leeyahay baahi ayaa ka haysatay dhanka mushaarka. marka Bayern Munich oo tagay heshiis 4 sano ayuu la gaaray, isbuuciin wuxuu qaadan doonaa 234,000. inaba caadi maahan. meeqa u raacday 60 ilaa iyo xagga 30 90,000. marka cid iska heli karta male 90,000 isbuuci lacag oo dakhli ziyaado waay. marka 234,000 hadda oo ka qaataa isbuuciiba naadi kubadda cagta Bayern Munich. marka baahida ugu weyn uu tagay waa dhanka mushaaraadka leeyahay ninkaas. sidoo kale warkeen waxaa ka mid ah soo laabashada World Champions, waa Club World Cup cidii kusoo guuleystay naadi kubadda cagta Chelsea ayaa kusoo laabatay saaxada kubadda cagta isku diyaarinta xilli ciyaareedka soo socda. iyadoo markaan trading ka bilaawday waxaan lagu arkay xidig dhawaan dhaawac ku maqnaa reer Leicester City ka imaaday, daafac mayalka adag Fofana. ninkan caadi maahan, walow dhaawac la oo yahay haddana daafac bir asoo ogeene, laakiin dhaawaca haleele, dhaawac soo u gale ninkan maba soo jeesaninba, dhaawaciisoo ku maqan yahay. sidoo kale Gittins xidigii hore naadi kubadda cagta Borussia Dortmund garabwaar u ciyaari jiray ayaa asigana isku imaaday naadi kubadda cagta Chelsea markii uu horeysay kasoo qayb galay tababarka naadi kubadda cagta Chelsea. marka nasiib waxaan asigana waa iskeenay. sidoo kale waxaa war lagu soo waramayaa Enric oo markaan doonayo ama daneynayo inuu ku biiro, ama lagu soo waramaya ku biiristiisa Real Sociedad. xidigan ayaa la sheegay inuu ku biiri doono Real Sociedad weliba qaab amaah ninkaas ayaana Real Madrid ka tagi doono sida majalada ugu weyn hadda ay qorayaan. Luka Modric oo soo dhaweyn weyn ee u sameeyeen taageerayaasha naadi kubadda cagta AC Milan. ninkan caadi maahan, nambarka 14 ayaa loo xiray, haatan AC Milan ayaa lagu soo dhabeeyey. sidoo kale isla Modric ayaa ka dhaxgalay 15 sano saaxada kubadda cagta ee Lionel Messi ee Cristiano Ronaldo ku aruursanayeen Ballon d'Or 15 sano. dadkaas iska daldalanay, waxaa leeyahay ninka kaliya dhaxgale waa Luka Modric. marka inaba caadi maahan, Modric sanadkaasna waa u martay, kadibna waxa waaye waa ka ninka waa iska duquube waayihiisa kubadda cagta oo iska yaryaraade. marka Luka Modric asigana oo lagu soo dhabeeyey AC Milan weliba si waali ah. sidoo kale wararka waxaa ka mid ah naadi kubadda cagta Barcelona iyo macalinkeeda Hansi Flick ayaa lagu soo waramayaa in season kale uu bilaabay inuu dhaliyo goolashi ugu badnaa. waxaa leeyahay seasonkii lasoo dhaafay 2024-2025 60 kulan uu dheelay 174 gool ayuu dhaliyay 2024-2025 koobka oo dhan. haatan waxaa leeyahay barseasonkii 3 kulan oo dheelo 15 gool oo haystaa. marka 2025-2026 waa aalad kale asku diyaarino gool dhalin iyo weerar culus ee Barcelona. marka sanadka hore 60 kulan 134 gool, sanadkana 3 kulan oo isdiyaarin ah 15 gool ay haystaan leeyahay. marka inaba caadi maahan. sidoo kale waxaa ka mid ah Marcus Rashford ayaa 122 daqiiqo uu dheelay ku helay gooshiisii u horeysay ee naadi kubadda cagta Barcelona. inaba caadi maahan. waxaa leeyahay Rashford waa nolol cusub ayay u tahay, farxadda iyo qaabka uu la qaybsanayo kubadda naadi kubadda cagta Barcelona waa wax si dhiirgelin u sameynayso, uuna ku doonayo inuu sidaas helo si u dheelo World Cup-ka 2026 xiliyadan oo kale lagu soo gabagabay doono. marka Rashford waa bilaaway shabaqiisa El Clasico. waxaa leeyahay hadiiba Real Madrid iyo Barcelona isqabtaan waxaa dhanka goolasha deeqsi ka ah naadi kubadda cagta Barcelona. sida tan iyo waxaa la markii ay dheeleen El Clasico Real Madrid ayaa dhalisay 496 gool halka naadi kubadda cagta Barcelona ay dhalisay 514 gool. 514 gool ayaa dhalisay naadi kubadda cagta Barcelona. marka dhankaasna Barcelona ayaa ku sareyso ayaa leeyahay. marka sidoo kale waxaa isbarbardhig lagu sameeyey Gareth Bale iyo Neymar Jr. wala laba garab oo hadee dhinaca kala imaadaan diifka imaana ay jireen, laakiin hadda Neymar iska ognaa Brazil ku dambeeya waa iska dhaawacle xaflada iska raadsado. marka waxaa leeyahay 258 kulan ayuu saftay Gareth Bale
106 gool ayuu dhaliyey 67 caawin waa uu sameeyey. sidoo kale Neymar Jr ayaa asigana 186 kulan dheelay 105 gool caabiye 76 caawin sameeyey. dhanka kulamada beela badan laakiin dhanka goolasha iyo markii la fiiriyo kulamada Neymar sareeya leeyahay maadaama asoo ninkaas goolo oo kulamo badan goolashan hal gool oo ka sareeya halka caawintana Neymar uu ku badan yahay 67 10 caawin ayuu ka sareeyaa Gareth Bale. marka Neymarna waa ka bandhigiisa inaba caadi ma ahayn. intaas ayaa kusoo gabagabaynaynaa muuqaalka xiga noo balan sidaas iyo amaano Allah. subscribe like share ay noo balan bye bye.